taliska guud ee ciidamada boqortooyada Talyaaniga ee Italian Somaliland ayaa waxay qoreen documentigaas oo ka kooban ilaa iyo 7 page. marka reportkan waxay ku sheegayaan in ciidamada daraawiishtu ay markaa dhaqdhaqaaq ka sameynayaan amba ay soo gaadheen areada soonka amba regionka Balcad taariikhdu markay ahayd 1910 bishii April. reportka maalintay qoreen waxay ahayd 22 April 1910 dabcan page-kan marka laga reebo inta kale reportku waxa weeye far isku dardara oo marka ay adag tahay in la fahmo waxa uu leeyahay marka waxay noqonaysaa qof laga yaabo qof Talyaani amba librarian oo kale Talyaani hadii la helo inuu inaga caawiyo waxa meesha ku qoran. laakiin page kamid ah waxa weeye type-ka oo marka isaga way la tarjumi karaa. laakiin reportku isku soo wada wuxuu sheegayaa marka in ciidamada daraawiishtu ay marka xilliga as early as 1910 bishii April ay marka already soonkan Balcad ay ka sameynayaan dhaqdhaqaaq amba ay soo gaadheen Balcad. dabcan Taleex iyo Balcad aad bay kala fog yihiin laakiin sida ay marka aan reportkan ka arkayno waxa areada ka sameeyeen bay Talyaanigu ay qorayaan ciidamada daraawiishtu dhaqdhaqaaq ay areada ka sameeyeen xilliga